reerkaaga u burburin lacag darteed okay waxaa rabaa inaan kaa jahad bixiyo wax yar matalan oo kale qof aad isguursateen nolosha isku fahanteen qofkaasayto inuu waxba haysan waad ogtahay waad u dul qaadanaysaa qofka haduusan isbedelaynin inuu shaqaysanaynin oo inuu wax qabsado rabin oo lacag dhanba qalbigiisa ku jirin adigana caruurtaada dhalaya baa future u baahan wax barasho u baahan yihiin nolol u baahan yihiin xabiibti so intaas duuso qofkaas ii sameyn karin oo aniga ila dadaalaynin oo maanta ilmaha aan dhali doono mas'uuliyadooda aabanimo uu qaadi karin mas'uuliyadda aabanimo it means ma aaba macaan waa ku jeclaa dhab ma ahaya waa inuu wax barashadiisa bixin kara waa inuu haduu dhakhtar u baahdo inuu geyn kara waa cunugiisa everything uu baahan yahay adduunyada saaran waa inuu siin kara aysan goodbye brother نعيش كل شيء نوع عاصق المؤمن دلائي ده هل مركو قدمان واقصو فكنا هرتو مرة مركو قدمان مركز واقصو قدمان عندك وقت مدلوات نين هدوسن يعني ما أنت نين بالود لهين وما أنت هدو بالود يجي يا شوك هلا وحبسكم الشيء جينا سجنا goodbye هدو ما أنت بالود لهين وما أنت قف إلهي كحر ريان وحي شيء سو وارون نندن يا نندن أدمانت نلش هذا قيب كميد نقضي نين آب نقضي سيد عيالك ولو نقمنايو عيارايو أردايو انت صنع قاريو كواتو سيدو نقنا مسؤول سيدو مسؤول قاضايا سيدو آبو نقنايا gabadha way ku fududaatay horta ninkan qof walba uu sheegay rayaanay ninkan uma ekonin mas'uuliyad qaadi karo waxa waa ciyaal xaafad hadda ordin jacayl meelad kala soo bixi doonto maalmahan dambe jacayl ma jiro laakiin markii hore saaxiibta waxa waalay jacayl indhaha ayay tirnad hadda fiirisay oo hadlayso wallahi waxa ka muuqata inay xanuun badan waxyaalo badan ay qarinaysay waxyaalo badan ay samreysay markii hore rayaan intayna dhalin rayaan way fududeed oo qof fudud ah laakiin intay hooyo noqotay qof walba uu arkayo aqliga ka muuqdo deganaashada ka muuqato waxyaalo badan ay kala aragtay dunida ayaa kala cadaatay qofka hooyo markuu noqdo iyo markuu single iyo isku ordaayo isku mid ma aha hooyo marka dareemo badan ayaa ku galaya bal hadda waxay ka fikirayso waa ciyaalka barito nolosha ku noolaan doonaan waxay dhahday qofka maanta duu caawinaynin aabon ku jecel aabo san af wax ma taro waa inaa mas'uuliyadda qaadaa waa inaa ilmaha u xoogaysataa maxaa u dhashay hadaa wax siinaynin maxaa dunida loo keenay ilmahan haddaana wax siinaynin u rafaadaynin u ordaynin ciyaalkan bari mustaqbal ayay u baahan yihiin iskuul ayay u baahan yihiin nolol ayu cilmi lacag wax walba caafimaad waan ku dhala ma oho labadooda hadda waa la arkayay qofka ka muuqata ciyaalnimo ee qofka ka noqoto maanta qof waalido weyn labadooda haddaa la fiiriyo rayaan ayaa ka muuqata waa hooyadii waa aabihii waxay u ogtahay inay xariirkan in ayada gacanta ku haysay waxay u ogtahay inay waxyaalo badan u adkeysanaysay ayna afka ka sheegayn because dad badan oo cadow ayay leedahay kasii daran dad badan oo ku dhow ayada oo ku farxayaan furitaankeedii oo ku farxayaan mida kaleeto dhimanka waxa ugu doqonsan gabaraa isqabteen gabar waa waxan ayada ciila laga yaabo inuu ka hadashiyo ciil inay ku caytamto laakiin adiga ilaahay nin rag ayuu kaa dhigay inaa meelaha gawaarida la gasho soo caytamto waa laga quruxsan yahay maalin hore arkaa video ku caynayay uu hadal dur uu waday gabadha marka horta ayadaa caan ka dhigtay shalay wiilka lama aqaanin qof uu ahaa lama garanaynin markii la soo fadhiistay social media ayaa la ogaaday qof uu yahay maanta waxyaalo badan noloshiisa ka caawisay laakiin intuu furitaan waa la isfuri karaa calaf way dhamaan kartaa waa la isfuri jiray laakiin raggan aan social media waxaa laga yaabaa gabar haddayba kala tagaanbo sidii dumarkii intay soo fadhiistaan meel cay iska bilaawayaan la murmayaan gabdhihii cay tamayaan waxaa la yaabaysaa ninkan ma nin ragga ninkan waxaa ka khaldan
bas waa shakiya kaa gelaya taaragnimadiisa. Gabadha xanuun badana laga yaabaa. Hadda gabadhan waxay ka muuqataa waxyaalo badan inay isu samri jirtay ee qarin jirtay. Meeqoha hadal laga baxay inuu ninka ay gabadha kala tageen laakiin ay dhihi jirtay maya anaga reer dhaqan ayaan ahnaa dad wanaagsan aan waa fiicannahay waa faraxsannahay. asagana uu meelaha iska wareegayay. maalinta guursato wiil ilmo yar in maskaxda kala bixin dhibaato ayay leedahay. intuu badan ragga weyn oo ka weyn ayaa la guursadaa. qaarkooda waxaa arkaysaa hadda kuwan fiira hadda midka Rayaan ay guursatay midka Rashmanays ay guursatay maxaa ku tilmaami kartaa ma aabaa dhihi kartaa dadka noocaas ah ma aabo ayaa dhihi kartaa dadka noocaas ah dad gabdhihii ay qabeen gabdhihii ay nolosha la soo qaateen dee meel soo fadhiistaan laabtoob ay gatay waxaas ii samays like bro ilaahay nin rag muxuu kaaga dhigay gabadhii waa kala tagteen waxaa arkaysaa gabdhihii waa ka arkaysaa samar gabdhihii waa ka arkaysaa maalayaa wan hayto gabdhaha iyo nimankan gabdhaha baa ka caqli badan sababta hooyooyinkeena waxay noo faanin jireen in ragga caqli badan yahay oo ragga saan yahay laakiin mararka qaar waxaa la yaabta arkaysaa waxaad la yaabto ayaad arkaysaa. hadda fiirayada ilmaha u naxaysaa ilmaha ayay ka fikiraysaa waxay leedahay hataa nin marawi inaa ku degdego marawi inaa nin maanta ku degdego waxaan rawaale nin oo ilmahayga ka fikirayo wallaahi ayada hataa way isnacda hooye ayay noqotay way isbedeshay laakiin dadka qaar ma wa fahamsano markii la dhaho qofku wuu isbedelaa qofka mar laga yaabo markiisu hore inuu fudaan jiray uu ciyaari jiray uu dhedheeli jiray laakiin qofkan hooye ayay noqotay waxaa ka aragtin wax caqli badan maalinaan ku arkay istaalka cafwan wallaahi maasha allah dadka waxay ka dhigaan ay banaanka sheegaan ayada isku mid ma aha. She's just cool. ma aqaani dadka maxaa ka khaldan gabara arkaysaa ilmaha isku dhasheen intaasoo bilooyin mise sanadoon isla joogteen sidee ku keentay gabadha caay public ku caay ilmahan aabahooda ayaa tahay social media wax ma iloowo ilmahan videoyaashan way arki doonaan sanado kadib